محمد عبد الوهاب نور أبوجه لحدي ماجي سنة كان يالو حريتوهن كلا حريرة دلك الله أنا حريستي بحسني عبد الله بولاي oo isla maalinta xiritaankiisa sanad ka hor lagu dilay degmada Boondheere 19 Abriil ayaa la abuuray dareen xirfadaysan oo u muuqaal eg dulmi ku tumasho reer ama shakhsi aan ku tiirsaneyn tun qabiil حبسو هاي محاو وين kugu dhacay يا أبو مسا waxay sii dhashay in maalintii xigtay ee bahda warbaahinta banaanka barxadda hooyooyinka ay isugu yimaadaan iyagoo saaxiibkood u dalbaya cadaalad waxaan anaga ku qanacsanahay in wasaaradda warfaafinta ay wax naga weydiiso annagana waxaan ku qanacsanahay wax wasaaradda warfaafinta ay naga weydiinayso inaan ka garba waa runtii abuuja malahan xildhibaan malahan qabiil anaga qabiil u ah anaga xildhibaan oo ah waxaan ka wasaaradda warfaafinta oo ah meesha u xigta dawladda ayaa weydiisay sababta hay'adaha amniga u xirteen wariye Abuuja waxaana bogga wasaaradda lagu daabacay in Abuuja yahay tuhunsan cadaalad suga ah maalin kadib banaanbixi wariyeyaasha ururada saxafiyiinta ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyay isku howlay faafidda warar ku suntan caburin cagajugleen iyo eedo kale oo xukuumadda madaxa u saareen waxay qabeen xilligaasi in hanaanka cadaaladda ee la mariyo argagixisada uusan lahayn wax naxariis ah iyo aragtiyo kale oo qalafsan sideedaba maxkamadda militariga ama maxkamadaha militariga gaar ahaan Soomaaliya waxa jira fikir ay dadku qabaan oo ah in ay tahay meel cadaalad aysan ka jirin meel dadka masaakiinta ee shacabka waliba dadka aan haysan dad ka daba qayliya ama u dood aan haysan inay tahay meel lagu dulmiyo meel lagu ciqaabo meel qofkii taga oo la geeyo aanu ka soo laabanin oo macnaha ay u dhamaatay kaliya waxa inta badan la arkaa kaliya iyadoo dadka lagu dul akhrinayo suuratul maa'ida oo qofkii dil lagu xukumayo runtii walaac weyn aan qabnay xilligaas waliba waxaa noogu darnayd markii la yiri maxkamadda ciidanka loo wareejiyay maxkamad ciidan in wariye loo wareejiyay runtii walaac weyn inagu abuurtay waxay ahayd arin maaragtay aanan qaada karin mana aysan helin sharci yaqaano ugu yaraan ku qanciyo in hay'adaha amniga haysan karaan tuhunsano ku eedeysan dambiyada culus 9 cisho isla markaana ay ka dalban karaan garsoorka muddo intaas la siman oo uu garsooruhu siin karo isagoo oo ka eegaya danta cadaaladda sida uu tilmaamayo qodobka 47 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed 7 Juun ee sanadkan ayay bilaabatay horgeyntiisa maxkamadeed kadib baaritaankii hay'adaha amniga wixii intaas ka dambeeyay xafiiska xeerlaaninta ayaa isku howlay baaris dheeraad ah ugu dambeynna ku soo ilaatay maxkamadeenta wariye Abuuja oo si kama dambeys ah loogu soo gabagabeeyay hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida 3 bishan maanta ay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu la wadaagay warbaahinta gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor cadeyn waayay in eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu galay eedda loo jeediyay markii ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur oo ahayd in xurriyadiisa loo celiyo markii ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhaxaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in Maxamed Cabdiwahaab Nuur uusan gelin eedda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dambi kale cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u fulan raacfaan wabillahi tawfiiq sidoo kale amar ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu faray hay'adaha amniga in baaris iyo dabagal ay ku sameeyaan gacan ku dhiiglihii dilay Allah u naxariistay baxsanay Cabdulla Boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda maxkamaddu waxay amraysaa hay'adaha ammaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dambi falihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad baxsanay Cabdulla Boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda si loo qaado tilaab ku haboon oo sharciga waafaqsan waa maasan ururada warbaahinta madaxa bannaan oo ka hor fagaaraha cadaaladda ciidamada qabay walwal badan maanta waa ay uga duwanayd waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta cadeynaynaa in arrintaas beenooday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab la ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay
sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu sidaas ay u shaqayso waxay ficnaan lahayd haddii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqaynayaan abuuja maanta waa xur 5 bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka joogo oo xor u yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waan ku faraxsannahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka banaadir iyo maxkamadaha la midka ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta gudoomiye shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii aan isniintii aan ka qayb galay dhageysigii wuxuu ahay dhegeysi cajiib ah 4 saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay gudoomiyuhu uu si wanaagsan u dhageysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay gaar ahaan markaan ku celcelinayna dad badan baa la lahaa shabaab baad garab siinaysaan shabaab baad leedii waxaan ninkaan duntiisaan naqaanaa maanta waxaan aqoonsanay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaar ah ugu mahad celinaynaa shuute iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo dhinac taagan aabihiisa ayaa mar kale la midoobay reerkiisa isaga oo xor ah waxaan kusoo koobay hadalkayga xuquuqii maanta iriday maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalad waxaan leeyahay aad u maasantiin markasta cadaaladda sareyso maasantiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana aad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamad waana maasan Abdulqaadir Aysoor baahinta qaranka Muqdisho